teknolojiyaddu waa barashada farsamo cusub oo casri ah taasoo fududaysa arrin kasta oo aadamuhu u baahan yahay. waxaa la qabtay shirweynihii koowaad ee golaha curinta iyo teknolojiyadda ee deegaanka Soomaalida. haddaba kulankani oo ka qabsoomay madaxtooyada deegaanka Soomaalida ayaa ay dah furtay wasiirka xafiiska curinta iyo teknolojiyadda ee deegaanka Soomaalida Marwo Faadumo Maxamed Yuusuf. hadaladeedina waxaa kamid ahaa shirkan haddii aan isku dayo sababta la isugu yeeray ama sababta shirka loogu baahday waxaa jira 12 xafiis oo uu ka mid yahay xafiiska madaxweynaha xafiiska iyagu 12 ku yahay 12 xafiis oo noqonaya xubnaha golaha hogaaminta xafiiska iyo hawlihiisa kore. waa council loo aasaasay inuu naga taageero shaqooyinka xafiiska guud ahaan. xabsiyo heer kaabineeya ku jira oo 9 ah. waxaa guddigaas ka ah gudoomiye madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida. xoghayna waxaa ah xafiiska curinta iyo teknolojiyadda. dhammaan xabsiyada kalena waxay noqonayaan xubno. hadda ka hor ayaa lagu soo saaray bayaanka dhool buu ku soo baxay oo maaragtay lagu bayaamiyey. halkan waxaa marka marti inagula ah xubno ka socda xafiiska heer federaal oo uu hogaaminayo hadda tiimka jooga Nuurling oo ah directorka waaxda deegaanada taakuleynta iyo wada shaqeynta ay naga dhaxayso. geesta kale waxaa shirkani wareega koowaad ee golaha curinta iyo teknolojiyadda ee deegaanka Soomaalida ka soo qayb galay 10 xafiis oo heer deegaan ka kala socday, taasoo kulankani uu daarnaa sidii si wada jira xafiisyada golaha kamid ah ee heer deegaan ay uga wada shaqayn lahaayeen siyaasadda lagu maamulayo curinta iyo teknolojiyadda deegaanka, iyadoo ay golahani qayb ka ahaayeen fuud ka kala socotay wasaaradda curinta iyo teknolojiyadda federaalka dalka. halka uu faahfaahin iyo sharaxaad badan uu soo jeediyay mudane Deeq Axmed Jaamac oo ah agaasinka waaxda qorsheynta ee xafiiska curinta iyo teknolojiyadda. maanta waxaa noo qabsoomay kulankii golaha sayniska teknolojiyadda iyo curinta ee heer deegaan. kulankan oo aad u wanaagsanaa in xafiisyada loogu talagalay inay ka soo qayb galeen si wanaagsan buu noogu qabsoomay. golahan wuxuu ka kooban yahay xafiisyada heer deegaan, xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska curinta teknolojiyadda. golahan heer qaran uu ka jira waxaana hogaamiyo ra'iisul wasaaraha dalka. heer deegaan ba hadda laga aasaasay waxaana chairman-ka ah ama hogaamiye ka ah balka gudoomiyaha ka ah madaxweynaha deegaanka. ujeedada golahan loo aasaasay waxay ahayd inuu ka tala bixiyo mar walba qaabka deegaan ahaan looga faa'iideysanayo teknolojiyadda iyo teknolojiyadda ku habboon deegaanka. mar walba deegaanka teknolojiyadda ku habboon inuu ka tala bixiyo. waxaa kaloo loogu talagalay golahan ama inuu diyaariyo ama uu ansixiyo siyaasadaha kala duwan ee ku aadan cilmi baarista ama curinta la xiriirta teknolojiyadda ku habboon mar walba deegaanka iyo bulshada.